Mas'uuliyiinta Tansaaniya ayaa sheegay in 500 oo ruux oo mutadawiciin ah ay u dirtay Kilimanjaro si ay u bakhtiijiyaan dab qabsaday buurta, oo ah buurta ugu dheer qaaradda Afrika. Kilimanjaro ayaa waxa ay gaaraysaa 5,926 mitir, iyadoo ololka dabka laga arki karo meelo fog. Kulliyadda Maareynta Duurjoogta Afrika oo ku taal meel aan sidaa uga fogeyn buurta ayaa u dirtay 264 arday si ay gacan uga geystaan la dagaalanka dabka iyo in ay sahayda u qaybiyaan shaqaalaha dabdamiska. Dhanka kale, shirkadda helikobtarada ee State Aviation ayaa u soo bandhigtay helikobtaradeedu si ay uga caawiyaan qiimeynta inta uu la egyahay burburka. Bayaan ka soo baxay Guddiga Xadiiqooyinka Qaranka Tansaaniya ee loo soo gaabiyo TANAPA ayaa lagu sheegay in mutadawiciintu ay ku guuleysteen in ay yareeyaan fiditaanka dabka. Afhayeenka guddiga TANAPA, Pascal Chililuto, ayaa sheegay in aagga weli gubinaya uu yahay Kifunuka Hill, isagoo intaasi ku daray in sababta dabka ka dambeysa aan weli la ogaan. Chililuto ma uusan sheegin sida dabka oo maalin ka badan socda uu saameyn ugu yeeshay duurjoogta ama dhirta, laakiin waxa uu xaqiijiyay badqabka dalxiisayaasha. Buurta Kilimanjaro ayaa waxa ay caan ku tahay dalxiisayaal ka kala yimaada daafaha caalamka.